kulan wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta oo idinka imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah xaaladda beeraha iyo xoolaha ee Soomaaliya oo daraasad laga soo saaray. waraysi ayaanu idinka haynaa gobolka Victoria ee dalka Australia oo Soomaali badan ay ku nool yihiin oo lagu soo rogay bandow habeenkii ah kadib markii ay bateen kiisaska cudurka coronavirus. qodobadaas iyo sheekooyin kale ayaanu idinku haynaa barnaamijkeena qubanaha maanta. aan ku bilownay daraasad ay si wada jira u soo saareen macadka Heritage iyo jaamacadda City University magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku soo bandhigeen xaaladda beeraha iyo xoolaha Soomaaliya iyo waliba caqabadaha ka haysta labadaasi waaxood sidii ay u heli lahaayeen xirfadlayaal ka shaqeeya xoolaha iyo beeraha Soomaaliya. haddaba Professor Xuseen Xaaji Macow oo ka mid ah qorayaasha warbixintan ayaanu ka waraysanaynaa arrintaasi qadka Skype-ka magaalada Muqdisho ayuu haatan si toos ugu jira. Professor adiga oo soo dhawaanaya bal marka hore waxaad iga warantaa daraasadan aad soo saarteen waxa ay ku qotonto iyo waliba waxyaabihii aad ku ogaateen. marka hore waa mahadsantihiin waraysigan VOA waxaan daraasadan haddaan takhalus yar samarikaas siiyo waxay ahayd daraasad ay ka howlgalaysay macadkan Heritage iyo City University. ujeedkiisana wuxuu ahaa in guud ahaan mataqaanaa agriculture iyo livestock sector beeraha iyo xoolaha Soomaaliya bacdama ay backbone oo dhaqaalaha ay u yihiin oo Soomaaliya in daraasad laga sameeyo guud ahaan macnaha caqabadaha ka jira iyo fursadaha meesha yaalla iyo gaar ahaan hoos loo sii daadego oo la arko yani skillska waddanka yaalla oo hadda macnaha jaamacadaha oo ka howlgala agriculture livestock ma leeyihiin baaxad ay ku address gareyn karaan ama ay ku diiradda saari karaan caqabadaha ka jira agricultureka iyo livestock sectorka. waa tahay haddii aynu bal marka kala qaadno labadan arrimood oo aynu aadno dhinaca beeraha oo kale waxyaabaha aad ogaateen dhibaatooyinka ah maxaa ka mid ah? wallahi beeraha dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan ayaa ka jiro haba ugu horeyse xagga security-ga. waa ogtahay Soomaaliya macnaha dhibaatooyin badanaa ka jiro dhinaca beeraha in particular security wise meeshii aan accessible ahayn iyo infrastructure-ku aad u liita jidadkii iyo irrigation infrastructure-kana aad iyo aad u liita. waxaa kale aad u liita mataqaanaa dhinaca ganacsiga laftirkeeda markii laga hadlayo wax soo saarka at the field level productionka beeraha oo mataqaanaa aan u diyaarsanayn qalabkii beeraha iyo skillskii loo baahnaa oo wax lagu soo saari lahaa intaba mataqaanaa ay u diyaarsaneen. iyo waxa ugu muhiimsan oo kale oo jira oo caqabadaha ka mid ah policy regulationska oo ka jira mataqaanaa waddanka wasaaradaha ay gacanta ku hayaan ama dawladda gacanta ku hayso aysan u diyaarsaneen ilaa heerkii la rabay oo export market la geli lahaa ama mataqaanaa policygii iyo regulationskii lagu agaasimi lahaa beeraha ama wixii wax soo saarka beeraha. of course macnaha research extension services wax hore u jira ay ahaayeen oo burbureen oo baaba'een ilaa haddana weli si fiican uma soo noqon oo ma soo istaagin ilaa heer ay mataqaanaa servicekii ay u baahnaayeen beeraha ay keenaan ama ay gudbiyaan. waa garta marka dabcan caqabado aad u fara badan ayaad sheegtay oo qaarna ay waqti badan qaadanayso in wax laga qabto laakiin waxyaabaha asaasiga ee muhiimka ah ee aad isleedihiin ama aad warbixintan ku ogaateen ee haddii hadda la helo wax soo saarka beeraha horaa lagu qaadi karaa aad isleedahay maxaa ka mid ah? wallahi hadda waxaan soo helnay daraasadan markaan assessment aan ku sameynaynay waxaa noo soo baxday waxaan skill gaps wax la yiraahdo waa jiraan oo gaar ahaan oo khuseeya jaamacadaha markaan oo agriculture iyo livestock wax ka soo sameeya ama ardada soo saara. marka taas horta weaknesses badan ayaa meesha noogu soo baxday oo u baahan in la address gareeyo si loo ogaado macnaa ama si loo
gacanta loogu qabto mustaqbalka beeraha iyo xoolaha ee Soomaaliya sababta waxa waaye haddii aanan jirin skills fiican ama dad tayo leh oo jaamacadaha ka soo baxayo oo address gareyn kara duruufaha adag oo maanta lagu jiro way adkaanaysaa in mataqaanaa wax la gaaro ama wax la qabto marka maxaa diidan oo hortaagan waxaan ogahay in jaamacado aad u fara badan ay waddan ku yaalaan oo maadooyin kala gedisanna ay bixiyaan maxaa diidan in jaamacaduhu ay soo saaraan xirfadlayaal dhinaca beeraha iyo weliba xoolaha ka shaqeeya wallahi horta jaamacadaha ool fiican ayay qabteen guud ahaan burburkii wixii ka dambeeyey kadib Soomaaliya historically waxaan ognahay prior yani civil war ka hor inuu hal jaamacad kaliya ay ka jirtay Somali National University jaamacadiina inay baabaaday kadib waxaa soo baxay jaamacado badan oo aad mataqaanaa ugu howlgala wax soo saar macnaa dhalinyaro oo tayo leh marka waxyaabaha oo caqabadaha meesha ku jira ayaa waxaa ah jaamacadihii aan support fiican curriculum fiican oo mataqaanaa oo adag oo ardada wax lagu baro aanan jirin jaamacadihii aan policy iyo regulation weyn oo mataqaanaa controlayo ama xakameynayo xagga dowladda ha ahaadaan ama xagga mataqaanaa dad loo carbiyey arrintaas ha ahaadaan aysan jirin iyo quality-ga oo ardada ka soo baxaya jaamacadaha taasna mataqaanaa caqabad inay tahay waa tahay professor xuseen aad baad umahadsan tahay dhinaca xoolaha haddii aynu eegno dabcan iyadana daraasad baad ku samayseen waxyaabaha marka dhibaato waxaan ognahay dee Soomaaliya inay ka mid tahay wadamada noloshoodu inta badan ay xoolaha nool ku tiirsan tahay marka dhinaca maxaad ogaateen iyada wallahi dhinaca xoolaha iyadana wax badan ayaan ku ogaanay xagga tayada waxay la mid la tahay beeraha tayada oo mataqaanaa ardada ka soo baxaya waxa kale aan soo ogaanay in xoolaha Soomaaliya ay tahay yani waxa ay ku tiirsan tahay dhaqaalaha Soomaaliya yani marka fiirisid tirada xoolo oo la dhoofiyo aad ayay u tiro badan tahay waxa jira sanadkii 300 ilaa 400 milyan ama 500 milyan oo dollar in laga heli jiray markii uu suuqa furnaa oo Sacuudiga oo la dhoofin jiray hadda waa sii yaraatay macnaha waxyaabo badan duruufo badan ayaa jiro marka waxyaabaha oo macnaha loogu baahan yahay xoolaha wax waaye waa value addition wax yiraahdo sababta waxa waaye in value addition fiican loo helo waxaan xoolo nool inta la dhoofin lahaa in mataqaanaa oo la dhoofiyo xoolihii oo processed ah ilan xoolaha yani munaafacaad badan ayaa jiro oo mataqaanaa waddanka wax weyn u tari karo makhaarkii ayaa wax tari karo oo mandhaceeradii ayaa wax tari karaan oo waxyaabo badan oo laga macaashi lahaa ayaa waxaa hadda dhacayso inaan laga macaashin oo hataa ay samayn lahayd employment howlgelin ay u samayn lahayd waddankii hadda waxa waa xoolihii waa la soo qaadaa waa la dhoofiyaa iyagoo sidiisa value addition kale ma jiraan employment cusub oo looga samaynayo ma jiraan marka waxaasoo dhan waxa waaye recommendationka ayaan ku qornay in value additionka inay aad muhiim u tahay waayahay professor xuseen ugu dambeynta adigoo soo koobaya waxaan rabi lahaa inaad daqiiqad aad ku soo koobto maxaa talooyin ah oo aad soo jeediseen si wax soo saarkii beeraha iyo xoolihiiba sare loogu qaado ama lagaga faa'iidaysto ugu dambeynta waxyaabaha aan soo recommend karin ayaa waxaa kamid ah smart climate agriculture wax la yiraahdaa jiro in la isticmaalo mararkii drought ay jiraan wabiyada waditaankooda inay muhiim ay tahay in laga shaqeeyo keliyada waaweyn oo biyaha qaada irrigation canalska in laga shaqeeyo talooyinka ayay kusoo baxeen laakiin waxa ugu muhiimsan meesha yaalan waxa waaye human capital oo studigan oo asaas u ahaa human capital investment waa wax muhiim ah quality-ga sare loo qaado jaamacadaha quality-gooda sare loo qaado si ay ila waxa dhan aan ka hadlayno waxa waxay isugu biyushoonaysaa quality of mataqaanaa of education as such aqoonta yala in la helo marka la soo saaro ayaa waxaan oo dhan ay qaban karaan haddii kale lacag kastoo lagu siiyo haddii aad capital oo mataqaanaa fiican ahaynin oo human capital fiican waxa laga yaabaa in wax weyn ku qabsoomin dad aqoon fara badan u leh in arrimahaas ka shaqeeya waata aad baad u mahadsan tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa professor xuseen xaaji macow oo ka mid ah dadkii iyagu daraasadan ka soo shaqeeyey oo isagoo qadka iskaabka magaalada muqdisho ku jira ii warramay aad baad u mahadsan tahay professor adaa mudan
dowladda Australia ayaa gobolka Victoria oo caasimadiisu ay tahay magaalada Melbourne oo Soomaali badan ay degan tahay waxa ay ku soo rogtay bandow habeenkii si loo xakameeyo cudurka COVID-19 oo wadankaasi ku siifiday. wariye Ibrahim Umar Bafo ayaa isagu haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Melbourne qadka ayuuna ku jira. Ibrahim, faafahinta warkayna si maxamuud aad baad u mahadsan tahay. dabcan bandowgan caawa 8 fiidnimo xilliga magaalada Melbourne ayuu bilowday ilaa iyo 5 aroornimo ayuu socon doonaa muddo ku siman 6 toddobaad. sababaha ugu waaweyn ee bandowga loo soo rogayna waxay salka ku haysaa fididda cudurka COVID-19 oo gobolka Victoria magaalada Melbourne si aad ugu fiday isla markaana uu gaaray ilaa iyo 600 ilaa iyo 700 oo qof inuu maalintii uu soo rito. arrimaha ugu waaweyn ee bandowga loo soo rogayna waxaa kamid ah si loo yareeyo dhaqdhaqaaqa dhalinyarada. waxaa la ogsoon yahay in dhalinyaradu ay 8 wixii ka dambeeyay aad u socdaan isla markaana waxaa la aaminsan yahay baa la yiri in dhalinyaradu ay yihiin kuwa cudurka faafiya oo soo qaada u keena guryaha iyo dadka waaweyn. sidaas daraadeed madaxa gobolka Victoria Daniel Andrews waxa uu go'aamiyay maanta in gobolka uu galay xaalad musiibo. dabcan Soomaalida ugu badan ee Australia degan gobolkan ay ku nool yihiin gaar ahaan magaalada tan Melbourne waxaanu la soconaa Soomaalidu inay yihiin dad aad u socod badan oo xilliga habeenkii waliba socda isu taga isbooqda isku sheekaada isla markaana shaqaysta qaarkood saameyn weyn bay ku yeelan kartaa bandowgan hadda gobolka lagu soo rogay. aad baad u mahadsan tahay Ibrahim Umar Bafo. ugu dambeyntiina xabad joojin naadir ah oo u dhaxaysa Taliban iyo dowladda Afghanistan oo ay ugu tala galeen munaasabadda Ciidul Adha ayaa maalintii saddexaad ka hirgashay wadanka Afghanistan. boqolaal maxaabiis Taliban ayaa laga sii daayay xabsiga si ay taasi u sahasho wada hadallada nabadda ee labada dhinac. mas'uuliyiinta ayaa sheegay inaysan dhicin wax dagaalo culus ah u dhaxeeya labada dhinac tan iyo markii xabad joojintu ay bilaabatay Jimcihii si loogu dabaaldego munaasabadda Ciidul Adha. madaxweyne Ashraf Ghani iyo madaxda Taliban ayaa labaduba muujiyay in wada hadallo muddo dheer dib u dhacayay ay si toos ah u bilaaban karaan ciidda kadib. sida uu qabo heshiis ay wada saxiixdeen Taliban iyo Mareykanka bishii Febraayo. wada hadallada u dhaxeeya kooxaha Afghanistan ayaa la qorsheeyay inay bilowdaan bishii Maarso, laakiin waxaa dib loogu dhigay xiisado siyaasadeed oo ka taagan Kaabul iyo muran ka dhashay maxaabiis isweydaarsiga labada dhinac. heshiiska ayaa dhigaya in xukuumadda Kaabul ay soo sii dayso ku dhawaada 5,000 oo maxaabiis Taliban iyadoo taa lagu bedelanayo 1,000 ka tirsan ciidamada amniga Afghanistan oo gacanta ugu jira kooxda Taliban. dhinaca ciyaarahana kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa habeenkii xalay waxay ku guuleysatay koobka FA Cup-ka markeedii 14aad waxaana ay tahay kooxda ugu guulaha badan koobkaasi waxayna 2 gool iyo 1 kaga badisay Arsenal kooxda kubadda cagta ee Chelsea. kulankii kama dambaysta FA Cup-ka ee habeenkii xalay lagu ciyaaray gegida Wembley oo maran. ciyaaryahan Aubameyang oo nambarka 14aad u qaata kooxda Arsenal oo guushoodana suura geliyay ayaa koobka la guddoonsiiyay. waxaase xusid mudan kooxda Chelsea inuu goolka u dhaliyay ciyaaryahan Pulisic oo u dhashay wadanka Mareykanka. xidigan oo wacdaro ka dhigay garoonkana waa uu ka dhaawacmay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. taageerayaasha Chelsea waxay rumaysan yihiin guuldarrada in ay keentay dhaawaca xidigooda soo gaaray. horyaalka wadanka Talyaanigana maanta ayaa la soo gabagabeynaya iyadoo kulamada qaarna maalintii shalay ahayd la soo gabagabeeyay oo kooxaha kubadda cagta ee Juventus, Inter, Lazio iyo Atlanta ayaa waxay xaqiijiyeen in ay yihiin kooxaha iyagu qaaradda Yurub Champions League xilli ciyaareedka soo socda uga qayb gali doona horyaalka wadanka Talyaaniga. kooxaha Lecce iyo Genoa waxa ay ku loolamayaan sidii ay kaga badbaadi lahaayeen ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee wadanka Talyaaniga. daawadayaal, barnaamijkii qubanaha maantana inta ayaan ku soo gabagabeynaya. intaynu mar kale dib u kulmi doono waa Maxamuud Mascade iyo dhammaan baabahda qubanaha VOA leh sida iyo nabadgelyo.